thank you for being here. waxaanu aad kaaga mahad celinaynaa in aad naga aqbasho in aanu kula yeelano waraysi gaara saacatu safiir Michael Keating aad baad ugu mahadsan tahay in aadna siiso waqtigaaga qaaliga waxay tani noo tahay fursad aanu bulshada ku gaarsiino safarka aad ku joogto Somaliland haddii aanu ku bilowno xiisada deegaanka Tukaraq waxa aad kulamo la qaadatay madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha maamul goboleedka Puntland maxaa horumar ee aad ka gaadheen ma jiraan qodobo muhiim oo aad isla qaadateen labada madaxweyne maxaad si nooga sheegi kartaa haddii ay jiraan Well, I'm very concerned about the possibility that there could be aad baan uga warwarsanahay arrinka Tukaraq waxaanu qof walba aanu la kulannay kala hadalay sidii xiisada loo damin lahaa shaqaaqada ka dhacda halkaasi waxay wardhilale u tahay dadka ku nool deegaankaasi waxay ku keenaysaa barakac iyo dhibaato aan xamili karin umalayn maayo in ay dhanna u wanaagsan tahay haddii ay iska hor imaad dhaco Somaliland haday tahay iyo haday Puntland ahaataba waxa aan ku guubaabinaya madaxda labada dhinacba in ay ka digtoonaadaan inay halkaasi dhibaato ka dhacdo sida ay doontaba ha noqotee sidoo kalena waxa aanu raadinaynaa wada aanu nabadgelyo ugu xalinayno dhibaatadaasi taasina waxa ay gundhigu ahayd wada hadaladii aanu la yeelanay madaxweyne Biixi and that was the discussion I had with President Biixi in regards to airspace control. su'aasha labaad ee TV-ga saab weydiiyay ayaa ahayd danjira arrimaha khuseeya maamulka hawada sare ee Soomaaliya waxaana labada dawladood ay gaadheen heshiis haddaba iyada oo aan Somaliland lala tashan ay hay'adda UNICAO ay ku wareejisay dawladda Soomaaliya maxaad nooga sheegi kartaa sababta aad u cuskateen wareejinta hawada maxay ICAO u tixgelin weyday heshiiska lagu soo kala saxeexday dalka Turkiga laakiin waxa jiray heshiis ay ku kala saxeexdeen magaalada Ankara xilligan malaha miya The ICAO, the International Civil Aviation Authority, is a UN body. ICAO waa qayb ka mid ah qaramada midoobay imika iyo haatana ama aynu jeclaano ama aynu diidnay Somaliland looma aqoonsana dal madax banaan ha ahaato midowga Afrika ama qaramada midoobay marka arrinkaasi ma aha mid ay hilmaami karto ICAO arrinkuna waxa uu yahay sida ay Somaliland iyo Soomaaliya uga wada hadleen labada dhinacna waxa ay ballan qaadeen in arrinkani xal laga gaari doono And both sides have said they want to resolve this problem. An agreement wada hadallada Somaliland iyo Soomaaliya wali waxay u xiriireen yihiin khilaafka soo kala dhaxgalay labada dhinac muxuu yahay doorkaaga arrinkaasi I mean, I think the key thing is to get the talks back. qodobka muhiimka ahi waa in wada hadaladii dib loo furo waxaanan hubaa labada dhinacba inay si gaar ah u danayn doonaan inay xaliyaan maxaa yeelay maamulka hawada sare waa arrinka qof walba u dhagtaagayo qolo walbana waxa ay raadinayaan sidii gacanteeda ay ugu hanti lahayd So the question becomes su'aashuna waxay noqonaysaa xilligee ugu habboon ee wada hadaladii dib loo furi karaa iyadoo oo laga dab qaadanayo wada hadaladii hore iyo wixii lagu heshiiyay my position is that doorkayga arrinkani ka ergi ahaaneed waa in xal siyaasadeed loo helo kala durugsanaanta Somaliland iyo Soomaaliya run ahaantii waxaa jira waxyaabo badan oo ay ka midaysan yihiin labada dhinac sida arrimaha la xiriira amniga dhaqaalaha isbeddelka cimilada gargaarka bini'aadanimo waxaa jira dhalinyaro aad u badan oo aan haysan shaqo kuwaas oo u baahan in loo helo difaac adag waxa kale oo jira arrimo intaasi ka badan oo ay wadaagaan labada dhan laakiin awood military marnaba noqon mayso xalka aan raadinaynaa we heard that the UN offices has been moved from waxaanu maqalayn xafiiska qaramada midoobay ee Somaliland in loo raray magaalada Muqdisho maxaad nooga sheegi kartaa arrinta guuritaanka xafiiskaasi
That's not true. There's no move. I mean, taasi gabi ahaanba ma aha run aniga marka laga yimaado in aan ahay ergeyga gaarka ah haddana waxa aan madax ka ahay hay'adda UNISOM waxaanan xafiiskayaga guud ku leenahay Muqdisho sidoo kale waxaan xafiis muhiim ah ku leenahay magaalada Hargeysa waxaana ka shaqeeya shaqaale aad u badan oo ku kala filigsan dhammaan gobollada Soomaaliland naguma jirto niyadayada in aan xafiis ka rabno mana moving it and no plan to move it. maxaad ku sifayn kartaa xaaladda xuquuqul insaanka iyo xorriyatul qowlka ee Somaliland gaar ahaan xidhitaanka wariyaasha iyo qoraayada I mean, I think enjoyment of xorriyadda hadalku waa mid aad u muhiim ah 20 sano ee u dambeeyay Somaliland waxa ay ka horumareysay dhanka siyaasadda sanadkan waxa dhacay doorashooyin kuwa kalena foodayay inagu soo hayaan taasina waa wax lagu faano waxa ka mid ah dimuqraadiyadda iyo isla xisaabtanka xorriyadda hadalkuna waa qayb muhiim ah oo ka tirsan taasi waxyaabaha ay qaramada midoobay aadka u dhiirigelinaysa waxa ka mid ah xorriyadda hadalka marka waa in la tixgeliyaa xorriyadda hadalka waa in la tixgeliyaa shaqada wariyaha haddii la xidho qof lagu soo eedeeyay in sharciga uu jabiyay ama uu sameeyay ficil amni darro sababaya waa in sharciga loo soo maraa arintani waxaanu kala hadalnay mas'uuliyiinta Somaliland waxyaabaha aan qabtay intii aan halkan ku sugnaa waxa kamid ah inaan kulana la qaatay koox u dooda xuquuqul insaanka waxaan sidoo kale kulamo la qaatay bulshada rayidka ah iyo waliba siyaasiyiin arintan aad u danaynaysa waxaan hadaladooda ka dareemiyay in arinkani ay u arkaan arin aad u muhiim ah in wax laga qabto and I think there's a strong feeling that this is important. arrinkaasi miyaad ka wada hadasheen madaxweynaha haddii ayd ka wada hadasheen maxaa aad iska tiraahdeen waan ka wada hadalay arrinkan waliba ka abwaaniciimo waan ogahay in aanu ilaa haatan wax tallaabooyin cad ah ka samaynin arrinkaasi laakiin waxa aan ogahay inuu aad u garanayo qiimaha xorriyadda hadalka dhibaatooyinka Somaliland haysta waxa kamid ah in aanay u dhisnayn hay'ado ka howlgala arrinkan inta ugu badan ee qarashka Somaliland ku baxa waa dhanka amniga waxaana door bidayaa in aan la hilmaamin dhinacyada kale ee waxbarashada caafimaadka shaqo abuurka iyo waliba sharciga iyo cadaaladda and strengthening justice and the rule of law. Somaliland signed agreement with DP World. Somaliland waxay heshiis la saxeexatay DP World iyo Ethiopia kaas oo ku saabsanaa maamulka dekedda Berbera heshiiskaasina waxa ka hor yimi dawladda federaalka ee Soomaaliya iyagoo ku tilmaamay inuu yahay heshiiskaasi mid sharci darro ah muxuu yahay doorka qaramada midoobay ay ka qaadanayso khilaafkaasi Somaliland iyada heshiiskan gacanteeda ku saxeexday waxaanan u malaynayaa in dawladda federaalku taageerayso shaqo abuur iyo horumar dhaqaale iyadoo aanay eegahayn in arrinkan loo soo maray sharciga caalamiga iyo in kale toona waxaanan filayaa inuu isku soo dhaweyn doono Somaliland iyo Soomaaliya humanitarian funds gargaarka bini'aadanimo ee qaramada midoobay bixiso waxa inta badan qaadata Soomaaliya iyo maamul goboleedada maxay Somaliland u heli weyday saamigii ay ku lahayd gargaarkaasi haddii ay eegno tirada ay Somaliland ka hesho mucaawimada aniga oo ku salaynaya tirada dadka waxa aan arkayaa inay Somaliland heshay xaddigii ay ku lahayd mucaawinimada bini'aadanimada ay bixiso qaramada midoobay waxaan uga jeedaa taasi mucaawimada qaramada midoobay waxa lagu saleeyaa baahida iyo qaabka isticmaalka lacagta xaalku sidii sanadkii hore ma aha oo roobabkii weydeen waxaana la filayaa inay roobabkii sii socdaan 3 toddobaad ee soo socda sidoo kale halkan kama ay dhicin fatahaado haddana iyadoo la eegayo wax wada qaybsi cadaalad ah lana eegayo baahida waxaan oran karaa Somaliland way heshaa saamigeeda waanaanu haynaa tirooyinkii iyo waliba xogtii aanu taa kuugu cadayn lahayn dhanka doorashooyinka Somaliland waxa ka dhacay doorashooyin 6 doorasho ah tii u dambeysana lagu qabtay hanaan tiknoolajiyadeed oo aad u sareeya miyay jiraan wax qaadhaan ah oo xafiiskaagu ku kaabayo doorashooyinka baarlamaanka iyo deegaanka ee dhici doona generally speaking the UN everywhere in the world does not do
local elections. Typically, meel walba oo ah dunida qaramada midoobay ma taageerto doorashooyinka dawladaha hoose laakiin waxa laga taageeraa tababarada ama la talinta kale oo gaar ah ma aha tan in mid Somaliland oo kaliya ku kooban waa xeer ay leedahay qaramada midoobay waxaan filayaa cidda kaliya ee ka qayb qaadan jirtay doorashooyinkani in ay joogaan waxa wada hadal ay u socdaan qaran bixiyayaasha iyo dawladda Somaliland iyadoo xukuumaduna ay bixinayso qarashaadkeeda iyo wixii dhankeeda ku xiran along with the government of Somaliland to the cost and to the technical aspects of running the local and parliamentary elections. horumarka ay Somaliland samaysay maxay tahay gorfayntaada ku aadan arrimaha Somaliland? Well, I was only here 4 months ago, so 4 bilood ka hor ayay ahayd markii aan Hargeysa safar ku imi waxa intaasi dhacay isbedel weyn laakiin dhanka gargaarka bini'aadanimo aad loogama horumarin caqabadaha ugu waaweyn ee Somaliland wajahaysa waa dhanka bulshada waxa jira dhalinyaro badan oo ka soo baxay jaamacadaha iyo dugsiyada sare kuwaasi oo raadinaya shaqo iyo fursado dhaqaale dhalinyaradana waa dad wax bartay hibe iyo lacag leh haddana waxa ay isweydiintu tahay sidee Somaliland uga faa'iideysanaysaa dhalintan dihin ee hibada leh qurba joogta ayaa iyaguna ah in aan la hilmaami karin waxa ay dalka ka sameeyeen maalgelin ballaaran iyo taageero siyaasadeed